Mhm, mhm. Okay. Waa maqlaysaan aabbaha wuxuu leeyahay ilmahan ka soo celinay waddan ka mid a waddamada carabta badanaa Soomaalida Egypt ka soo laabtaan baan u malaynaya. Eh, Haddaan waddankii ku soo laabanay UK-na qur'aankii annagu in dusha uga baxaan baan rabnaa aniga iyo hooyo iyo macallinka. Haa, ma saas maaha? Aniga hooyo iyo macallinka ayagiina ma rabaan waxay leeyihiin qur'aankan baa kitaab kaga baxa amaana ka dhaaf. Eh, Haddaan soo koobo ilmaha ka saxan anna ayagaa la jira. Eh, Xaqiiqatan in badanna waan ka hadlay waan ku soo celinaya ama UK ku soo celi ama Sweden ku soo celi ama America ama Canada ku celi ama meeshaad ku soo celi ilmaha markaa soo celisid ilmaha horta waxay soo arkeen wax fara badan oo cadaadis saan dareensana quraankiina hadda fara kuma jiro maanta hawadiisayna maanta ma ahayna muddo ka soo wareegtay markastoo ilmuhu soo weynaadaanna behaviorhooda dabeecaddooda waxooda isbedelayaan maanta ha iskuul gaaraan ama ay iskuul kala tagaan ama ay sii weynaadaan ama ay social media galaanna kaba sii daran marka intaana jawaab saxa ku siinin waxaan rabaa inaan waxyaalaad ka dhaca waddamada kaga sheekeeyo waalidiin fara badan oo arrintan ka cabanaysa noo yimaada oo dhahaya ilmihii quraankii inay kitaab kaga baxaan bay rabaan annaguna ma aanan aqoon jirinin quraanka dusha looga bixi jiray weligaa leen quraan kitaab looga akhrinay ma aanan arkinin ilmaha quraan ku subciyaan naqaanay waxaan ku dhahnaa meeshii maahan ilmihii maaha macallinkii maaha quraankii maaha waxna way isbedeleen quraanka ilaa isu bedelo waa quraankii saxlayaan kooda barashadiisa sidii loo baran jiray sidii maaha wax badan baa isbedelay ilmuhuna ilmihii maaha aa taqaanay macallimiintuna macallimiintii ma aha ilmuhu ilmihii ma ahan oo ilmihii Afrika lagu hayay oo cadaadiska iyo daal ku yahay wixii loo diraba samaynaya ma aha baahidii faraha badnayd oo ku qasbaysana ma qabaan oo hadda isku dhacdaan xag u dareerayaan waa loo gacan kaalay oo loo gacan haatinaya macallinkii ma ahan waqtiga badan haystay inkastoo aanan dil iyo garaac marna ku talin ogolayna ilmaha garaaci jiray ma aha sidoo kaleeto qur'aanka meesha lagu hayo oo hadda la baraya ilmaha ay diinta aan rabno inaan baranno qur'aanka la iska dareerin jiray kaliya maaha waxaan rabnaa ilmaha diinta inay jeclaadaan ayadoo walba la rabay haddana waxa meeshaan sii dheer shaydaanku waa ku waaweyn meeshaan bay-adi ma aha marka sidaas daraaddeed qur'aan waxaan rabnaa yasiran oo ay jecel yihiin oo ay u soo hiloobaan oo aan lagu dhibinin oo duca la socoto oo shukuraad la socdo oo ammaan la socoto oo markuu jus gaaraba dhiraa maasha allah oo aan hoos celin lahayn ma la soo celin karo hadduu xataa hilmaamaadkii kun jir hilmaamo ilaa lama soo cesho guud baa tuu kuleba kaa tagayaan iskuulka lama soo ceshe maxay soo celinaysa iskuulka lama soo ceshe maxaa quraan soo celinaysa ma ku qaylin karta wadiga quraanka soo quraa iskuulka laguma qayliya maxay ku qaylaysaa ku leeyahay waxa dhacday marka waalidiin fara badan inay ku dhacday inay waayeen quraankii dusha looga baxayay ilmihiina ay ka diideen iyo macallimiinta qaarkood oo noocan ka mid ah ku taliyay in quraan dusha kitaab looga baxo maadaama halkan ilmuhu joogaan in quraan kitaabka looga baxo macallimiinta ku talinaysa way ka diideen quraanka kitaabka dusha looga baxayana way waayeen maxaa ku dhacay quraan la'aan ilmihii ma baranayaan quraanka dusha looga baxayay waalidkiina uma rabaan inuu kitaabka barto maxaa dhacay marka gurigu fadhiista ardayga waa meesha laga dhaho haddaad haddaad isku daydo inaad qabatid waxaadan qaban karinin waxaa qaban kartaa kaa baxsada waxaad awoodaan inaad ilmihiina quraan kitaabka bartaan waxaa dhici karta inay kuwa faahina ka soo baxaan oo dusha ka xifdiya way dhacdaa anaa haya hadda kitaabka bax mar rabu dhaha dushan kaga baxaya haye soo dhawow maasha allah laakiin boqolkiiba 99.9 baa waxay rabtaa inay kitaabka kaga baxaan oo dusha iga yeeraynin ما قصبي waxaan leeyahay waaldan ma sha Allah khatar waa amaanayaan kii dusha kaga baxayana waa hibada Ilaahay subhanahu wa ta'ala saan u baahan laakiin qasab ma xalimo wiilkeeda caasho wiilkeeda tatar mugalo dusha kaga baxay wiilka xalimo kii caashana ma aha umadu way kala santahay shughul isku ma laha isku dabacad ma ahan isku aqli ma aha isku fahmad ma ahan ducana ku dadaal quraan kitaab looga baxayana ku celi haduu ku celsho ku celi baran dusha baranaya
laakiin se waxaan haynaa oo qof kasta og yahay oo macallimiinta iyo haddii ay og tihiin ardaygii dusha kaga baxay kitaabka maantay beri ma yaqaano gamekii iyo facebookii iyo instagramkii iyo deela kuran yahay saaxiibadii iyo iskuulkii iyo tvgii imisa horta la malaysa haddaa u diidana darisku gelaya wallah u diidi kari saxiibkiisu raacaya abaadib bay ku leeyahay sidaa daraaddeed ilmaha quraan kitaabka bax haddaa arto inuu fahmo fiican yahay maasha allah dhaho waxaad tira cashar shalay ku celiya dana ku celiya dana markuu badan akhriyo tushu ka baranayaa laakiin dabeecadda ah geedkan fadhinaynaa saan yeelaynaa wixii wax ka beddelan ma ogoli ilma la'aan iyo quraan la'aan bay ku dhigaysaa waxaa la dhammaan ka diyaariya oo la yidhahdo hooy iyo aabe ilmaha hawadin haddaa wadan ha soo celin lasii orod wax dhibaato ilmahana u keena weeyaan markaad la orodeen xagga geyseenna nidaam fiican ma adnaan marsiinin oo iskuulna ma geyn quraanna ma geyn ee dhowr sanaad quraan ciqaab ah oo karkara oo macallin daba loo dhiibay u geyseen ilaa uu diinta ka nacay badanaa ilmaha kenya ee la gaaro u soo ciqaaba iyo qaahira iyo marka ilmaha ciqaabta ka daa iskuulna u ogolow quraanna u ogolow quraanka nolosha caadi kama dhig ha arkin quraanna la aadi karo iskuulna la aadi karo ha isku dhex wado laakiin quraanka goobsi 2 sano quraanka ay xifdisi quraanka uu xifdiyay 2 sano ku dhameeyay cadaab iyo ciqaabna wuu la kulmay mana hilmaami doono maanta haddii arda raacdo London u soo raacdo baa quraanka ugu dambaysa qotaa ku talagal marka waxa la yiri inta la faran jirso ugu dambeyntii aabi hooyo waxaan leeyahay ilmaha soo celiseen u ogolaada inay quraanka kitaabka ka baxaan ducana ugu dara intaasan heli karinba waxaan haynaa kooyay kitaabka fadhiga maqashay kitaab qaahiraan soo nacay iyo nairobi soo nacay iyo muqdisho soo nacay alxamdulillah de kitaabka ma ogola kitaabku ducana ugu dara laakiin maya maana maqli kara macallin karkara raba ay quraanka dusha uga baxaan wallahi macallin karkarkaay inta uu karkarin karaa waa in kooban maanta karkariyana adna karkara ku siyaadaya macallinka soo karkarinaya adiga ku karkarinaya adiga bari barta ka dareeraya marka waxaa la dhahaa inta la ficil ku dhaqay ma laga fiirsado waxaan dadaayo inta falin fiirso maxaa ka imaan kara maxaa ku dhacay xariimo iyo caasho iyo fada iyo farax ilmaha geeyeen halkaas oo inta la soo ceshay ay keeneen fadaadeen quraanka dusha laga baxsho hal lagu cesho macallin ciqaabaha loo keen wixii ku dhacay arada warso fasiiro fil ard ilaahay subhanahu wa ta'ala mar dadka warsada hadday way jiraan macallimiin ku talinayo aniga waxaan sheekay ka soo horjeeda laakiin runta ma oga ma ay soo tajribaynin xaqadana lama socdaan xaqadu waxay tahay ilmaha aan hayno waxay u baahan yihiin naxariis fara badan ay ilmaha u baahan yihiin kuwaani way ka sii duwan yihiin waxaa la dhahaa markii hablaha sheekaysanayaan mid uur kale waxa lagu yiraahdaa hablo ilaahay ka baq adaa xakar aad u jilicsane hay ka wadaa xakar aad u jilicsane uur baa leedahay in umur raacta laga yaabo waxaan dhahnaa marka waalidiinta macallimiinta isjilciya waliba kuwa Yurub Amerika jooga isjilciya duceeya ilmaha soo dhaweeya dhahaya hataa dhihi weydo iskuulka laga dhahaya wallahi billahi tallah isku ohinaya u tagaya adigana waxa laga dhigay in bahan taa lagu muujinayo wa ficlan way dhacaysaa marka indhahaaga fur waxa la yidhi walaalka macaan yahay heenta laga dhamaysto cunugeenu waxa ma diido quraanka waa dusha uga baxaya wallahi waa ciqaab ay diido anoo dhageysta intuu ku dhageysanaya waa in kooban ciqaabtuna meel ma gaarto saaxiibkiisu weydiina quraan ma dhigata maya anina quraan baa dhigtaa wala ilmaha noo jooga maalin ka hadlay waa dheysteen masalay yusuf dhashay way maskaxdooda guuxaysa iskuulku taga John iyo deela kuran yahay Mary iyo deela kuran yahay Smith bageesaha ka fadhiyo cunugan Soomaali ma aha uu yaabaya hadhow taa galabta loo ordaya usaan uu keenaya Maxamuud iyo Ciise iyo Faragasa wuxuu leeyahay labada beelood ka taraaga geesaha maxay tahay bari waxa dhacaysa saaxiibada iskuulka in la sheegay soo dhaxdo qoraan ma aadan qoraan maxaa la dhahaa wallahi ana qoraan baa la geeyaa ifadey ma iskuulka soo laabto galabta la caraayo geey ma ciyaaro inuu sheekaysto sheekaysa noocaasa waalidnimo oga macallimiinta qaarkoodna ma oga laakiin ilmaha maskaxdooda guuxayaan kulli ilmaha la sheekayso waxay ka guuxayaan ogow u sheego kadarka bar
إن مسلم وشك قرآن يقول عن فعل وشك دين إلهي سود الشيء وشك إلهي ليه وشك إنه بدنا خيرات جاري وشك أنا قرأت هدونا وشك ما حاجة كذا دودا الماء قربت هنا سورها الله رضع ويخليني أنا أنتجي سيد ما أنا أنت مشاركة أنت شيطان أنت شيطان أنت صحيح تعال بدنا نقول ما حد خدنا ليه ما سأو صحيح ما حكودي كم الله صاحب السول كا سأو واضح يروح يخوض الساحة وعن كويه صاحب السول تما خليه وضع سنة حتى واحد يسوي وضع سما واحد يسوي وضع يسوي برنا يقول وضعنا أخلاق ضفيعا يدعو عدو وناسن يدين شعيل كا هو يعبي قبل عطا إنه فعل وصمين بري إنه عنق يسدو صلابون طول ما أنا هدو دي كلا تبى سام وحيرة ولا عنق وشاكي هذول كاس وحيرة صوحة صوحة بلا يعني علي معها لكن التقدير مكوجرتها إنا وحن أي قاضيه ما مسنتهي عنق التلارة ما أنتقل بري من الله ما قاعد دونه ما وجد مركا فكر إنها الله شاكيسو barna ugu horeynba dhaqan kala duwan meesha aan ku noolnahay annagu waxaan nahay waxay yihiin ayaan cunfiya dagaal jirinin yaa tahdid dadka isku diin ma nihin laakiin isku dhanba ku nool haye isku luqadna waa ku hadalnaa haye annagu ilaah baan leenahay caabudnaa jannada naar baan aaminsana inay jiraan wax ciqaab iyo wax jiri doona deel ku xisaab iyo amaalmarin iyo janno ha qof baan wado u dhaqa cunuga uu sheeg waxa aaminsana ilmu Muhammad yaqaan wuxuu fahmay wuu ka aqli badan markuu suuqa tago baa Jesus lagu soo celiyo warkan haysi waradna Allah ugu soo celi Allah sheekayso laakiin hooyadiina hadde waxay ku mashquulsan tahay aroos iyo ayuuto odaygeena fadhi ku diraya meel kale oo jira farmahayna asaa kori doona ha saa bar intaan darada aan u dhahay ilmaha waxaan u akhrinaa islaam istaadio kitaabo badan oo dhow aan u soo bandhigay kitaabana akhrinaa wixii sheekh hadda ma baahniye farta iyo quraan ay diinta ay baran dooneen waxaan ku leeyahay loo waxyoonaya hadda barin ma diinta la baraya هذا ندير الراعي أساسا دكان ما كان بروح المتربية وأهل دبعة وين والله هذا الناس سهرين ولا كل ما أنا أختار بنصوني وأنا وضع كان إيماني وحنا لي أبي شيء هذا الناس سهرين مسلمين إيشان كوبدن وإن ما قرآن كتاب خبره وأنا ضد قالهم ده غير بنصوني وحيقول لي هذا فهم الدنيا هذا ما فهم سن لكن واقع عباري nolosha ay bartay waa soo degay wax tusaale wax ugu filan madarasooyinka naga taga hal cunug oo teenage ku arka dadka aan ingiriiska aqoon waxa la teenage waxa la dhahaa ilmaha ka bilowda deel quran yahay 13 14 15 16 17 ilaa 19 ilmaha UK dhan ku soo wareeg madarasooyin teenage joogan soo arka ma jirto masaajidana uma badna maxaa keenay cadays aan ka badan أمريكان تبي مدرسة هو رجع وعم كل إنه قرأ لما يعود ولا مساعد أنا ما قلت شيء أنا أو المغرب لما يحفل ده هي بعد عم كل هذا فهم بنود شيء المهم قرأ لما يعود وهيعد يعني هنا فرلوهن وطريقة استعيد هو صور هذا بس ظريف هذا وقتك سريارة كل شوفها قليل وعم كل هذا إمام مصدق المياه ويجينا وين عيسى حري الله والله كين النادر له حكم له أنا هاي الله ما حساب منه مركا وضمي وحنا لا يعني عايز قال يعني المها لوس ورد هل تشوف المها داودي كل ده وكحة لا فضل كوهين كرنين هذا هاي كنا سعرين لكن دبعتنا عايز توقع إن المال والبال سفر في جفنه المال هجوان قرآنك aan lagala tashanaynin dadka aqoonta u leh waxbarashada anagana go'an ilmaha go'an sheekada ku dhisan heblaayatri ilmaha go'an wallahi baanan diyaal ku reeyahay ilmaha khalas ku han kareen waa la ordaya wadankan ma rabo xaggan tagaya xoogada baa ninka nagu soo laabtay ilmaha go'an waxa soo ilmaha go'an tahay adoo ama hooyadan ku raadaan ama ilmahaaga mustaqbalka ka fakar ama ninka wardiye والله اسكولي بالله طلع اسكولي نين كان ما ورديك لكن المهاجة مال دين ولا عرب أنا سوعرين أما سيسان فرا وشيء ده يسمى حضرة ده هو المه هو أضوءنا سوعرين ده يسوى عن شيء أبشر مع سمين كتير المه وضماء المه جين كتير ودين هو بري كتير لغات وضن كان يكون بشين هو بري كتير وبري ما كان صار لابتان أي يسول كل عينه كسر مرة يعني دين برنا يعني
أخلاق الدين يكون ليهين لكن ما هو ضمان قال كل جيسيد أي سكون خرج راحين كل لغة راحين معلمات شو أي بهاليهين قال كل بريمة كسوع يصدق واحد صمين يصدق وطعم معلم واحد فلا فشل وحي وإن فاتك